الحمد لله وكفى وصلاة الله وسلامه على رسوله المصطفى وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي في الله، مبادئ إيمانك إلهي تبارك وتعالى الله وينوتش ذي رسولك صلى الله عليه وسلم إنوفا فاهي وحكم ذا الإيمان بقضاء الله وقدره. إن أدرميسه إلهي تبارك وتعالى أمر ربك qorshihiisa iyo qoridiisa iyo wax walba inuu horay u qoray una kala habeeyay. mabda'aas oo kamida mabaadiida iimaanka iyo arkaanta iimaanka waxyaalaha hoos tagaya waxa kamida inaad rumayso oo aaminto Allah tabaaraka wa ta'ala adoomadu waxay haystaan asaga qaybiyay sida quraanka iyo sunnadu inoo sheegeen arsaaqada Allah idin qaybiyay ajaasha iyo cimrigana ilaahi baa idin qaybiyay awlaadana ilaahi baa qaybiyay magaca iyo jaaha iyo kursigana waa qismo iyo qayb ilaahay Allah ciduu doono siiya ciduu doonana u diida ciduu doono u waasiciya ciduu doonana ku xidhiidhiya hawl ilaahi waaye. Allah tabaaraka wa ta'ala cidina lama wadaagto maamulkiisa cidina kama talageliyo cidina kama dab tagto ma weydiiso. Allah tabaaraka wa ta'ala sidaas wax u qaybiyaa qismada rabbigeen tabaaraka wa ta'ala wax inoo qaybiyay ee sida uu u qaybiyay adoomadiisa cid kamida oo lukule ma jiro shaqo laguma laha. qaybintu markay dhacaysana adoomadu ma joogaan kownkan intaan la abuurin 50,000 oo sano dhulka iyo samaawaadka intaan la abuurinba ayaa ilaahay tabaaraka wa ta'ala wax walba qaybiyo kala qoondeeyay oo kala qorsheeyay sidii uu u qoray u qoondeeyay bay wax u dhacayaan waxna isma bedelayaan. maqaadiirtaas ay inagu dul socotaa wax inooga furanna ma jiro inaad hoggaansantood yeesho waxaan ahayn kaaga ma furna. qaybta rabbigeen tabaaraka wa ta'ala uu qaybiyay kuma salaysna wax la yiraahdo waa adduunyada iyo qaybteeda kuma salaysna nacayb iyo jacayl kuma salaysna. ka uu waasiciyay oo arsaaqda uu waasiciyayna macnaheedu ma aha inuu jecel yahay midka uu ku xiriiriyayna macnaheedu ma aha inuu neceb yahay laakiin xikmad kale ku jirta. Allah waa qani khasnadihiisuna way buuxaan naxariistiisuna waa waasic adoomadiisana waa ka kaaftoomaa. su'aal baad isweydiin oo Allah hadduu tabaaraka wa ta'ala qani yahay oo khasnadihiisu buuxaan adoomadiisana wax u heli karo muxuu qaarna u qadiyay qaarna u siiyay muxuu qaar ugu xiriiriyay qaarna ugu waasiciyay kulli wada siiyo waasiciyo kulli muxuu ahay ka dharjiyo ya xikmad waay. quraanka kariimku rabbigeen inoogu sheegay tabaaraka wa ta'ala walaw basata Allahu ar-rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardi. hadduu ilaahay adoomadiisa arsaaqda u waasicin lahaa oo waxay rabaan wada siin lahaa way qooqi lahaayeen dhulkay ku qooqi lahaayeen labaghaw fil ardi. Allah wuxuu yaqaanaa adoomadiisa waxa ku qarsoon buu garanayaa dabeecadoodu yaqaanaa laana isaga abuurtay ala ya'lamu man khalaq isagaaba abuuray seebuusan u garanaynin u aqoonin. haddii loo waasicin lahaa labaghaw fil ardi way qooqi lahaayeen dhulkay ku kibri lahaayeen fasaad bay ku kici lahaayeen ولكن ينزل بقدر ما يشاء. لكن إلهي وحسود جنيا كل بقياس سيد الرباء يا خسندها الله وحكى إيمانا يا كل بقدر قدر كاسنا وحكوس ليسنيا حكمة إيه الضوء حال كودا إلا إصلاحيون لحاجاتيون هلابين وفسادين هذا يقول عليه سنته. ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. waxaa laga dambeeyay aayada lagu khatimay
alle adoomadiisa xog ogaal buu u yahay waana arkaa kan uu u waasiciyay wuu og yahay waxa ku jiro og yahay waxa ka dhalan karo og yahay kan uu ku cidhiidhiyay sidoo kale allah adoomadiisa waa yaqaanaa mar kale xikmad baa laynoo sheego quraanku inoo sheegay oo ka jawaabaysa su'aasha dhahaysa maxaa allah tabaaraka wa tacaala adoomada qaar ka mid risqa ugu cidhiidhiyay الله وحده تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك مركي يراهدين رسالة رب تبارك وتعالى لبدا ما قالوا مكة طائف وضياش هذا عن كاميد كم إذا ما الرسالة اللي قصوا الدشيء بدل كمحمد وويل لن يروا بالقرنين اللي لرات سنة الله وحده تبارك وتعالى أهم يقسمون رحمة ربك ما يقع نحريست ربك قيبية نحريست وحيك ونحريست الرب ما يقع قيبية نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا الدنيا ده أرزاق ذي النرش أنا أقيبي نبو قال لي أنا أقيبي ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات قاربا قارك كلا كسر ريسي قال لي تبارك وتعالى قاربا هنتدي مالك لدقان لا قالنا وحي علان وقوتان بيلائهن هوي بيلائهن ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات حكمته كجرت محيته الرب يوم ليتخذ بعضهم بعضا سخريا سي قاركود قارك كلا اي uga dhigtaan shaqaale iyo adeege uga dhigtaan say isugu adeegaan noloshu waxay u baahan tahay takaamul inay isdhamaystirto noloshu waxay u baahan tahay inay isu miisaaman tahay noloshu waxay u baahan tahay inay iscaawiso sidaas daraadeed faqiirka nolosha u baahan kan baahan noloshiba u baahan haddii la waayo cid baahan yaa kuu shaqaynaya yaa shaqada qabanaya yaa guryaha dhisaya yaa injineer ka noqonaya yaa dhakhtar noqonaya yaa dhulka qodaya yaa beeraha falaya yaa shaqaynaya ila nin walba waa haystaa wixiise yaa adduunyada hormarinaya hormarinta adduunkiya camiridiisu wuxuu ku salaysan yahay calashaan bini aadamka qaar baa baahan waa isu shaqaynaya liyattakhidha ba'dhum ba'dan sukhriya waa isu dheeli tiran tahay sidaas rabbigeen tabaaraka wa tacaala inoo sheegay sidaas daraadeed waxa laga marmaan ah in aad fahanto allah tabaaraka wa tacaala afcaashiisa iyo qismadan iyo waxan kownka ka socda bilaash ma ah xikmada ka dambeeyay adiga xikmada ma daalacatay ma fahantay xikmada mise meel sokaad wax ka fiirisaa حكم رباني وآدو حيال دير باكو جرا ما حكمة الآن ما ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون سيدا ساوحو يالا وفي سجاهل كحكمة فهمي واي قال كأه منافقة أما عقلي جيسية قرات كي سوى وصل ملفق قارسي سنين أفير سيدو وحو فهمي قرآن كنا شيئي الله وحده تبارك وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا كلا وابن آدم كبدن كي سيدو أفكره عقل يرديسه قرش يرديسه قراد حمديسه سيدو أفكره بني آدم كي إنسان كي مركو إلى هاي امتحانه أفير صدا halka hoosta ka xariiqa markuu rabbigii imtixaano oo u nimceeyo arsaaqda u waasiciyo wuxuu rabaysiyo wuxuu leeyahay rabbi akraman ilaahay baa ikraameeyay rabbigay waa ikraameeyay waa i doortay waa i jeclaaday yaa dooranaan ahay adoomada waa ka sitaa ilaahay xaqiisaan idinka xigaa ilaahay baa i jeclaaday وحالي وأما إذا ما ابتلاه دنك كله هذا هدو امتحانه الله يدنا هستك عريق الله مركو امتحانه أدون كيسا فقدر عليه رزقه أو رزق كعريريو وكي كله فيقول ربي أهانا وحولي ربي جيبائي أهانا يستي
والله نعي alla waa ifogeeyay maxaa la iga damacsan yahay muxuu sidan iigu galay waa la ifogeeyay alla wuxuu leeyahay tabaaraka wa taala kalla sida ma aha arinku kallaadu waxay u noqonaysaa labadiiba kii hore ee imtixaanka u qaatay in la doortay oo la jeclaadayna waxa la leeyahay ma yasaama kan dambe ee inta lagu imtixaanay arsaaqda in lagu cidhiidhiyay u qaatay in la nacayna waxa la leeyahay saama kallaadu labadaba ay u noqonaysaa ليس الأمر كذلك واي أرنكو ما أسادو فانتين ما عقلي قابني واي قراد يري واي ساس ما الله تبارك وتعالى سينتا الدنيا دا إيا قسمة دا كما صليسنا شعيل لكم صليسنا نعيم لكم صليسنا بل الدون كيسا ألا وشعليا هي مؤمن كأه أيا دعي كرتينو الدنيا دا كإلالي وانا معناها النبي قانو قيحي صلوات ربي والسلام عليه مركو لا يهي إن الله تعالى لا يحمي عبده المؤمن من الدنيا الله تبارك وتعالى أدونك مؤمنك وحك إلى ليا الدنيا دا وهو يحبه إساقو تشعل أدونك إساقو تشعل وأدون مدي سقيمها لأو كتشرو إلهي أكتي سقيمة كله أيها دنا إلهي وحك حكمين يا أوكعلنا يا الدنيا دا حوله هذا كراست هذا أولاد هذا فتن كذا أبو إلهي كحفظنا كإلالنا مركز النبي يقول مثال إنسي صلوات ربي والسلام عليه وحين لم يتهيأ كله روح إذن كتشر هذا يحنونك كدعو إذن كتشعل السجن باهية أياد عنتدي عبيتان كأوديدان باقدين أضو بقيسان دراديت عنتدن وكل من عذر كان كسيادي عبيتان كان هل اسبو كجلي هل أوميو فليبها لجور ركيبه عنتده هل لقى جويو ومحاول جوين يسمى بهاي علشان وحويان وانا تعيشين وضربتان علشان وحوي يوصل دبات أسي كردين سيدا سوكلو ربي تبارك وتعالى أدون كيس مؤمنك والدنيا ذا كعليا أسقو أدون كتشعل نعيب ما هو تشعلي هاي لكن الدنيا ذا إن لو فران مصلحة أقولي إمسا الروح أيا حالتي الدنيا ذو حليل كو أهيضو ظروفتي سو إسكأت كيت روح وناكسنها وإلهي يقاني وواجبات كيسا قدني والله كحرنا وحل كيسا قدني وطوصنا وحوغا مركي الدنيا دي اللقو فرين ميلو كردعي لواي فسقي يا فساد يا كبر يا إسلوينا يا وحبربري يا ديك تادي يا كرسي قل يا آفو هالكاسو كبالله ميين كون موقن المرك مصلحة ديسو إني أهيد سيدي هوري إنو كتشوغسو مصلحة ديسو ما أهيد maxay u dartay oo fidna ahayn xoolihi maxay u tareen kursigii muxuu taray jagadi maxay dartay magicii muxuu taray soo balaayo kama qaadin ilaahay waa ku yaqaana markaa ilaahay waa ku yaqaana waxa kugu jirana waa yaqaana qalbigaagana waa yaqaana isagaana ku abuuray maxaa laga rabaa marka inaad fahanto kow qaybintan iyo waxaan socdaay jacayl iyo nacayb kuma salaysnee horta waa imtixaan ogow faama al-insaanu idha mabtalahu waa imtixaankuna wuxuu u dhacayaa hadii lagu siiyana oo lagu waasiciyana waxa la fiirinayaa miyaad shukrin mise waad kufrin hadii lagugu cidhiidhiyana waxa lagugu imtixaanayaa la fiirinayaa natiijadu tahay miyaad sabri mise waad argagixi sidaas daraadeed mu'min baad tahay ilaahay baad rumaysan tahay aakhirad rumaysan tahay mabaadida iimaankaad rumaysan tahay maadaama aad rumaysan tahay waxa laazim ah kolba wixii ilaahay qayb kuu siiyay raali ku noqo kolba wixii rabbi kuu qadaro kuu qorsheeyay raali ku noqo hadduu ku siiyeyna sabir hadduu kaa qadiyeyna hadduu ku siiyeyna shukri hadduu kaa qadiyeyna sabir mu'minka dabiicadiisu sidaa waa haddaad sidaa yeesho ood raali ku noqoto ilaahay qismadiisood rumayso wax weyn baad helaysaa aakhiriya adduunka nabigeenna wuxuu yidhi salawaatu rabbi wasalaamu calayh allah tabaaraka wa tacaala ina allaha tacaala yabtali cabdahu fima acطaa
إلهي أدون كي سووا امتحانا وحسيي بونكو امتحانا لينظر كيف تعملون والو فيرين بل واحد سميس وتمحيص وكلا سارد أبال كيدون بالريبو جرا أبال كيدو وآخرو أدون كان وكلا سارد إلهي أدون كي سوحكو امتحانا وحسيي فإن رضي بما قسم الله له بالنبي صلى الله عليه وسلم وحي إلهي سي هدو رالي كن نقضو كو قنعو بورك له فيه والله بركين ووسع له وانا اواسع اليه وإن لم يرضى بما قسم الله له هدو رالي كن قوا يوحي إلهي سي أرجع يا شيغشو يا علاعل يا إيمان كبح يا واكن هدو رالي كن قوا يوحي إلهي سي نبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يبارك له فيه الله بركين ما يهرت وحل سي هيا راتهبدنات الله بركين ماي وحنا مر هدو سن بركه لهين قيمه ماله سكست هدو بدي لكن بركده لغا سيبو معنى ماله الله بركين ماي طلبات ويا النبي محمد صلى الله عليه وسلم لم يزد ما كتب له وحي الهي اقرين كسياد مايو ومعنى وين سكست هدو دداش اود اورد ood ka caakufto ood wax kasta samayso wixii qornaa ee xilliga la xariiqay waxba ku kordhin maysid taana soo kordhin maysid senti ma soo kordhin kartid hal senti aan qornayn ma soo kordhin kartid marka waxna ma aadan kororsanin barakadiina weyday aafa iyo iimaan la'aan baa kugu dhacday noloshii gubatay hantidan fadaha badani kuma dajinin waad ku gubatay oo qalbigaaga walbahaar iyo walwal iyo aafa ku haysata sidaas hadana khaatimo xumo ku dhiman oo qabri iyo cadaab aadaysa maxaad faa'iiday sidaas daraadeed wixii ilaahay ku qadaray oo ku qorsheeyay oo ku qaybiyay qayb ku sii raali ku noqon midda labaadeed helaysa waxa weeye faa'iidada weyn ah النبي قال تلمامي ويا صلوات ربي والسلام عليه أبو هريرة مركو الله لي أبو هريرة وضبط دور النبي أوتي صلى الله عليه وسلم وحكم ذها والنبي يقول صلى الله عليه وسلم ارضى بما قسم الله لك تكن أغنى الناس وحي إلهي قيب كوسي رالي كنقو وحاد نقونا يسادتك الروح أقول تاجر سن حقيت تاجر لماذا سكا إيمانيسا وحي كإيمانيسا قلبك قناع سنان إيمان حسلوني وأنا معناها النبي قال تلمامي صلى الله عليه وسلم مركو ليه هاي غني نمدا يتاجر نمدو حول بدني معها كراس يتشغم معها هانتي الدنيا بدن معها غني نمدا يتاجر نمدا نبتي وحوي قلبي قاقا إنو إلهي قناع سنان قليو أو وحي إلهي كسي آد إيمان كو قبطوط رالي كتوت كو قناع سنتهي تاسا waxay tahay taajirnimada aan la heli karin laana haduu ku yar yahay haduu ku badan yahay ba qalbigaaga degan wad xasiloon tahay wad faraxsan tahay noloshiiba ku dhadhamaysa waxaad sugaysa ee ku laaban ilaahay agtiisa ka sii weyn walbahaar iyo walwal iyo isla hadal iyo stress iyo wali midna ku gali mayso limaada laana aslan waxa badogtaa wax waa qoran yahay haddii lagu qadiyeyna waa qoran tahay haddii lagu siiyeyna waa qoran tahay talabaadna waxaad ogsoon tahay maslaxadaada baa ku jirta sida alkhayru fi ma ikhtarahu allah khayrku wuxuu kuugu jiraa sidii ilaahay kuu qorsheeyo kuu qoondeeyey ee ma aha sidaad adigu moodaysa ma aha adigu waa jeceshahay lagu furo inaad magac yeelato inaad xoolo yeelato in hantidii carruurtu ku badato waa sida binaadan waa la jecel yahay laakiin miyaad ogsoon tahay meeshaasi inay tahayba hiladii iyo xaasku ka qaadi lahaa inay tahayba ma ogsoon tahay meeshaad ku halaagsami lahay inay tahay ma ogsoon tahay soo lagama yaabo sidaas daraadeed wixii rabbi kuu qoondeeyay kuu qorsheeyay kuu qaybiyay mar walba raalli ku noqo hadday cidhiidhi tahayna ku sabir hadday waasactaho kuu fidiyey allana ka shukri sidaasaad waxaad noqonaysaa cajaban liamri lmu'min ina amrahu kullahu lahu khayr إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له ليس ذلك إلا للمؤمن صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.